qaadanayaa baaqa oo ah joojinta colaadda dalka ka aloosan. Waxaan nahay arday Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dagaalkii colaadda in la daayo. Waxaan ahay Soomaaliyeed waxaan dadka qaarna inay nabad qaataan. Waxaan nahay Soomaali waxaan dadka ugu baaqaynaa inay nabad qaataan. Aniga waxaan ahay aabba Soomaaliyeed dadka Soomaaliya waxaan ugu baaqaa meel kasta ay joogaan inay nabad qaataan. Waxaan nahay arday Soomaaliyeed waxaan dadkeena ugu baaqaynaa inay nabad qaataan. Waxaan aabba Soomaaliyeed ahay dalkeeda Soomaaliyeed waxaan leeyahay inaan nabad qaatin nabad ayaa macaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Anigoo ku hadlaya magaca aabba Soomaaliyeed iyo nin imaam masjid Ramadaan ah insha Allah taala waxaan ugu baaqayaa awlaadda ka aloosan dhammaan inay iska daayo oo sabarka la qaato dulqaadka la qaato sidaan ugu dimanaa subxaanahu wa taala wallahu subxaanahu wa taala. Waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan halkaan ugu baaqaynaa inay dadkeena nabad qaataan. waxaan ka mid ahay dadka ku shaqaysta xirfadda darawalnimada waxaan dadkayga Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan cirif kasta ay ku nool yihiin ugu baaqayaa nabad baa naas la dhuga leh. Waxaa soo xanuujisay marka aan soo istaagay wax kale ma ahan waxaan ahay aabba Soomaaliyeed oo dareemi karo nabadgelyo darrada waxa ka dhalanaya ama keeni karo marka dadkayga Soomaaliyeed meel kastoo dagaal uu ka socdo waxaan ugu baaqaa إن دجالك جوجيان. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قف كستو Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nabadda inuu kaalintiisa ka qaato isagoo iska soo duubaya kilib yar oo uu ku leeyahay waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa anigoo qof Soomaaliyeed inay nabadda qaataan adigoo joogtid goobtaada xafiiska goobtaada shaqada iyo gurigaaga. maanta waa 31 December 2024 oo maalintii ugu dambeysay ee sanadkan hadda noo dhamaanayo sanadka soo socda.